بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. وتحنيه إنه كسب سنة أعماش بشهر رمضان أي مضان تايقفك مسلم كي إنه كده دال أعماش وين أي مضان تايقفك مسلم كي إنه كده دال بشهر رمضان وحكمت صدقة ده يقفك مسلم كي إنه هذا مد بحناية وحي إلهي سبحانه وتعالى كو أرزاقي وحكم ده. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان أجود الناس waxa uu ahaa dadka ka ugu deeqsisan ayuu ahaan jiray nabiga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa kana ajwad ma yakunu fi ramadan waqtigu walibana ugu sii deeqsisan yahay ee uu nabiga sallallahu alayhi wa sallam ugu sii deeqsisana waxay ahayd bisha ramadan ayay ahaan jirtay waxa uu nabiga sallallahu alayhi wa sallam ahaa mid deeqsi ku ah jamiic al-abwaab al-khayr dhammaan albaabada khayrka oo dhan haday maal tahay haday khayr dadka loo sheegatay iyo dacwadii dadka loo sheegay khayrkii iyo wanaagii dadka loo sheegay iyo hadii ay tahay ما لا بحيو انتبا أوجه الخير دمانتود سداسوا ولأجل ذلك ما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إننا نصاصو كلا نقرنه ونقول رجليه نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم من حديث أنس الذي أخرجه إمام الترمذي وحكى سجناتين النبي صلى الله عليه وسلم لي أفضل الصدقة صدقة في رمضان صدقة وحوقف فضل بدن صدقة قفك بحيو بشهر رمضان وبحيو ayaa ugu fadli badan ayaa nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam laga soo wariyay waxa uu nabigu sallallahu alayhi wa alihi wasallam uu aad ugu dhiirigelin jiray saxaabadiisa inay bisha ramadaan waxyaabaha uga faa'iideysanayaan iyo acmaasha waaweyn ay sameynayaan uga faa'iideysanayaan ay kamid dhigaan sadaqada ay kamid dhigaan qaababka looga dhigi karaana way kala duwan tahay ama qaababka sadaqadaasi uu qofku uga faa'iideysan karo ama uu dhigi karaana bisha ramadaan aad bay u fara badantay waxa kamid ah it'aamu ta'am in dadka masaakiinta ah ee baahan la quudiyo oo cunto la siiyo waxay karsadaan iyo wax iyo mid karsan intaba in la siiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu quraanka dhexdiisa ku amaanay dadka muuminiinta sifaadkooda inay kamid tahay inay miskiinka quudinayaan waxna ay siinayaan wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskiina wa yatiiman wa asira dadka ay wax siinayaan ee ay quudinayaan waxa kamid ah kuwii masaakiinta ah kuwii agoonta ah iyo dadkii baahnaa intaba way siinayaan maxay u siinayaan ay u quudinayaan ay cuntadooda u siinayaan ay sadaqadaasi u bixinayaan waxay oranayaan inma nut'imukum liwajhi illah waxaan wax u siinaynaa ilaahi dirti oo ilaahi dirti baanu waxay idin siinayaan la nuriidu minkum jazaa'an wala shukura idin kama doonayno abaal marin iyo inaad noo mahadnaqdaan waxa weeyaan waxaan u bixinaynaa ilaahi dirti quudintaasi ayaan u bixinaynaa sidoo kale wuxuu ilaahay kaga waramay inay ka cabsanayaan maalin dambaysa maalintaasi darteedna ay wax u bixinayaan waxay oranayaan hadaladoodii kamida inna nakhafu min rabbina yawman abuusan qamtarira ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku abaal marinaya inuu maalintii ay ka cabsanayeen uu ilaahay badbaadiyo fawaqahum Allahu sharra dhalika al-yawm maalintaasi horta sharkeedii waa laga badbaadinaya ilaahayna wuxuu kula kulmaya walaqahum nadratan wa surura farxad iyo reenrayn ay ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisa ka helayaan walibana ilaahay waa abaal marinayaayo waxay sameeyeen waa ku abaal marinaya wajazaahum bima sabaru jannatan wa harira ilaahay wuxuu ku abaal marinaya janno iyo xariir buu ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku abaal marinaya ولأجل ذلك بدتك هري وناكسنا من الصحابة وأتباع التابعين والتابعين وأتباع التابعين وغيرهم من السلف الصالح وحي هايين قار حرص بدن يددال بدن كسمية على إطعام الطعام إن يدتك عنتظى سيان oo gaar ahaan waqtiga Ramadaan ay ku dadaalaan in ay dadka baahan ee aan heli karin waxay qootaan siiya inay siiyaan waliyaati dalik baa nabigeenu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxa laga soo wariyay inuu yiri nabigeenu sallallahu alayhi wasallam min hadithi الذي أخرجه إمام الترمذي بسند حسن إنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة أدون كستا أو قودية قف مؤمنة أو قاتشيسا إلهينا سبحانه وتعالى وحوصية يسجن وجبدلة ثمارتا
iyo midhaha jannada ayuu ilaahay subxaanahu watacaala ugu bedela. waman saqaa mu'minan calaa dama'in saqaahu allahu min arriixi almaqtuum. qof kasta oo waraabiya qof mu'mina oo haraadanna ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu isagana ka waraabiyaa riix almaqtuum ayuu ilaahay subxaanahu watacaala ka waraabiya. waliajli dalik baa bacdu salaf waxay odhan jireen laan adcu casharatan min asxaabi fautcimahum طacaaman yashtahuunahu axabu ilaya min an actiqa casharatan min waladi ismaaciil. inaan 10 addoomaa xoreeya bay odhan jireen dadkii hore wanaagsanaa. waxaan ka jecelahay 10 saaxiib oo aan leeyahay oo dadka wanaagsan ah intaan iskugu yeedho inaan cunto siiyo, cuntadaasi iyagu jecel yihiin inaan siiyo ayaan ka jecelay, waayo taasaa kasii ajar badan. waliajli dalik baa kathiir min asalaf waxay ahaayeen qaar aada ugu dadaala waqtiga ay sooman yihiin inay ka ag afuraan ama ay la afuraan dadka ay la afuraan. waxaa ka mid ahaa saxaabada cabdullaahi bni cumar radia allahu canhu, waxaa ka mid ahaa daauud aلطaa'i, waxaa ka mid ahaa dadkii wanaagsanaa malik ibnu dinaar, imaamu axmed ibnu xambal. ibnu cumar radia allahu canhu waxa uu ahaa laa yafturu ila maca alyataama walmasaakiin, mid aan la afurin agoomaha iyo masaakiinta mooyaane cid kale lamuu afuri jirin, keligii muu afuri jirin. bal dadkii hore wanaagsanaa waxay ku kaliftay haddii ay keligood afuraan inay arrintaasi nuqsaan ay u arki jireen, oo markay masaajidka yimaadaan ay keeni jireen cunto dad badani ay la cunaan ay keeni jireen. oo abu sawaar alcadawi wuxuu yihi kaana rijaalun min bani cadiy, reer bani cadiy rag ka miday waxay ahaayeen yusalluuna fi hada almasjid, masjidkan qaar ku tukada, ma aftara axadu minhum calaa طacaamin qad waxdahu, ma jiro qof keligii weligii ku afuri jiray, keligii afuri jiray oo cuntada gooni u cuni jiray. haddii uu helo cid la cunto waa wada cuni jireen, haddii uu waayena bannaanku ula bixi jiray si uu cid u raadsado ayuu ula bixi jiray. waxaa ka mid ah sadaqada, waxaa ka mid ah bisha ramadaan dadka aan afur helaynin inuu qofka muslimkii afur siiyo. waana arrin la sahashadana maaha, waa arrin aada iyo aad u weyn weeyaan. nabigeennuna sala allahu calayhi wacala alihi wasaxbi wasalam inagu dhiirigeliyey tilmaamina ajar weyn inay ka helayna iyo qofkaa sooman ajarkiisii oo kale in laynoo qorayo. oo nabigeena sal alla alay wasalam xadiidka uu soo saaray imaamu axmed النasaa'i wasaxaxu alcalaamatu alalbaniyu, nabigu wuxuu yihi man fadara saa'iman kana lahu mithlu ajrihi gayra annahu laa yunqasu min ajri saa'imi shay. waxa uu tilmaamay nabigu sal lay slam qof sooman afursiiya inuu isaguna ajarkii qofkaasi lahaayee loo qorayay oo kale uu helayo, iyadoo ka kalena aan ajarkiisii waxba laga nuqsaaminayn. marka ma jeceshay inaad soomkaagii iyo ajarkii aad soomkaaga ka heli lahayd aad ku biirsato mid kale qof sooman afursi? maantana baahidu aad iyo aad bay u fara badan tahay. qofka muslimkii waa inuu ku dadaalo sidii uu dadka baahiyeysan ama aan karaynin in ay waxay ku soomaan aan haysan, waxay ku afuraan aan haysan, waxay ku suxurtaan iyo waxay ku casheeyaan toona aan haysanin, inuu qofka muslimkii ku dadaalo sidii uu wax u siin lahaa oo uu ilaahay isagoo taa ugu dhowaanaya. ilaahayna subxaanahu watacaala sadaqada uu bixinayo wuxuu ugu soo bedelayaa wax ka khayr badan ayuu ilaahay subxaanahu watacaala ugu bedelayaa. ilaahay baynu weydiisanaynaa khayrka dhammaantiinu ina waafajiyo, kuwii ka faa'iidaysta bisha ramadaanna inaga dhigo. subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfir